ciidamada booliiska sida gaarka u tababaran ee Haramcad ayaa xalay dib u soo ceshtay gaari cabdibilaa ku xirnaa qori dhishiika iyo hub kale oo shalay aaday dhinac mucaaradka dowladda ee ku sugan qaybo ka mid ah degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Gaariga iyo hubkan waxaa watay Kabtan Muumin Ciise oo ka mid ah saraakiisha Haramcad kaasoo shalay u goostay dhanka mucaaradka isagoo horey u kaxaystay 5 askari oo midi darawal yahay. dib u soo noqoshadan waxay timid ka gadaal markii xalay aaga isgoosyada dabka iyo bakaaraha ay gashay xaalad adag maadaama ay goobahaasi soo buuxdhaafiyeen boqolaal ka mid ah askarta Haramcad oo si aad u hubeysnaa kuwaasoo diyaar u ahaa duulaan ay hubkooda galay dhanka mucaaradka ay ku soo ceshtaan. taliyaasha ciidamada Haramcad iyo booliska gobolka Banaadir oo duulaanka xalay qorsheysnaa hogaaminayay ayaa si cad ugu sheegay mucaaradka inaysan ka seexan doonin gaariga iyo hubka aaday dhanka mucaaradka balse aysan wax dan ah ka lahayn sargaalka goostay iyo askarta yar ee la socotay. Culeyskaas fuulay mucaaradka ayaa soo dedejiyay inay si degdeg ah isaga soo celiyaan agabkan ay lahaayeen Haramcad. waxaa kaloo dhanka dowladda u soo laabtay 5 askari ee la socotay kabtanka goostay iyagoo taliye Farxaan Qaroole u sheegay in ujeedkoodu aanu ahayn goosasho balse taliyihii ay la socdeen uu ku qasbay inay raacaan. arrimahan isbiirsaday ayaa soo dedejiyay in ciidamada Haramcad iyo kuwa booliska gobolkan ay duulaankii ka dulqaadaan mucaaradka iyadoo markii dambe xaaladda ay ku soo noqotay mid caadi ah. Kabtan Muumin oo haystay ammaanka mashruuca dhismaha wadada xiriirisa Muqdisho iyo Jowhar ayaa haatan ku biiraya askar iyo saraakiil ka goosatay dowladda kuwaasoo laga goostay mushaaraadkii iyo gunooyinkii ay sii jirtay dowladda iyadoo wixii xalay dhacay ay sidoo kale fariin cad u tahay saraakiisha iyo askarta kale ee laga yaabo inay damacsan yihiin u goosashada mucaaradka maadaama la isaga daba tagayo. Maxamed Yaxya Jinow, warbaahinta Nation, Muqdisho.